bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daaqodayaal halkani waraadka wararka barnaamijyadeedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo xoogan oo ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya jamhadda hubeysan ee Ola oo sheegtay in ay jab xoogan gaarsiisay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo fariin culus u diray kooxda TPLF barnaamijyo looga soo horjeeda dowladda Mareykanka dowladda ay horboodayso oo ka dhacay magaalada Bahirdar dowladda Shiinaha oo dowladda Itoobiya u ballan qaaday in ay si buuxda u garab taagnaan doonto xilli dowladda Itoobiya ay wajahayso dagaal kaga imaanaya xoog jamhadaha oo isbahaystay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow daawan doontaan balse marka hore daawada janaalkeena raadka wararka subscribe saaro muuqaalkana like saar oo sii share garay gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha 12 sanadka 2021 kusoo dhawaada qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidanka federaalka Itoobiya ee xooga TPLF ayaa waxa ay ka soconayaan qaybo badan oo kamid ah waqooyiga dalka Itoobiya tacdihii la soo dhaafay ciidanka federaalka Itoobiya iyo xooga TPLF waxa ay dagaalo ku dhex mareen deegaano ka tirsan Amxaarada iyo Canfarta dagaaladan ayaana waxa ka dhashay khasaare xoogan ciidanka federaalka Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay ku jabiyeen dagaaladan xooga TPLF waxay sidoo kale sheegeen in ay ka qabsadeen furimo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada TPLF sidoo kale ciidamada deegaanka Canfarta iyo kuwa federaalka Itoobiya ayaa waxa ay furimo cusub kala wareegeen xooga TPLF ismaamulka Canfarta oo ka hadlay dagaalka ka soconaya deegaano ka tirsan Canfarta ayaa waxa uu sheegay in laga saaray inta badan ismaamulka Canfarta xooga TPLF waxay sheegeen in isku geeyeen hal goob maalmaha soo socdana ay soo afjari doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaana uu hogaaminayaa ciidanka federaalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka soo muuqday warbaahinta dowladda ee Fana ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaas soconaya ay yihiin kuwii ugu dambeeyay oo lagu soo afjarayo kooxda TPLF sidoo kale Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ciidanka federaalka Itoobiya ay gaareen guulo waaweyn saacadaha soo socdana ay xaqiijin doonaan sidoo kale guulo kale oo hor leh Abiy Ahmed oo ku sugan in ka badan 7 furinta hore ee dagaalka ayaa waxa uu furinta ka sameeyay isbedel weyn waxayna ciidanka federaalka Itoobiya haatan wadaan dagaalo xoogan ay kula jiraan ciidamada TPLF ayaa haatan waxay wajahaysaa dagaalo xoogan oo kaga imaanaya ciidanka federaalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidanka federaalka Itoobiya ay haatan bilaabeen howlgal lagu sifeynayo waxa uu ugu yeeray argagixisada sidoo kale Abiy Ahmed ayaa mar kale waxa uu ugu baaqay dhalinyarada u dagaalanta kooxda TPLF inay isku soo dhiibaan dowladda federaalka Itoobiya diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa si weyn uga qayb qaadanaya dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya waxaana kooxda TPLF ay sheegtay in diyaaradahaasi ay geysteen xasuuq afayeenka xooga TPLF ee Tigreega Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka shacabka sidoo kale waxa uu sheegay in ay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah Getachew Reda ayaa qaramada midoobay ugu baaqay inay tilaabada ka qaado dowladda Imaaraadka Carabta oo gacan weyn ka siinaysa dowladda Itoobiya duqeynta dhanka cirka ah ee lala beegsanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxda TPLF muuqaalo laga soo duubay furinta hore ee dagaalka ayaa si weyn waxa uga muuqanaya diyaaradaha dagaalka ee droniska oo duqeynaya goobo ay ku sugan yihiin xooga TPLF sidoo kale diyaaradaha ayaa waxa ay beegsanayaan gaadiidka ay wataan ciidamada TPLF Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya lagu beegsanayo hal qowmiyad kuwa uu la jeedo qowmiyadda Tigreega waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo aqoonsado dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya in ay yihiin xasuuq lagu beegsanayo qowmiyadda Tigreega dhanka kale dowladda Itoobiya ayaa waxay soo bandhigtay burbur xoogan oo ka muuqda magaalooyinka Debrecen iyo Shawarabed oo maalmo ka hor ay ka baxeen xooga TPLF magaalooyinkan ayaa waxaa ka muuqda burbur xoogan waxaana burburay dhammaan goobihii ganacsi ee ku yiila magaalada dowladda Itoobiya ayaa waxay xooga TPLF ku eedeysay in ay burburiyeen magaalooyinka Debrecen iyo Shawarabed isla markaana ay biliqaysteen waxyaabihii yaalay maalin ka hor ayay faarujiyeen xooga TPLF magaalooyinkan waxaana halkaasi ku sugan dad shacab ah oo kooban dadka shacabka ah ayaa waxay sheegeen in xooga TPLF ay dhibaateeyeen markii ay la wareegeen magaalooyinkani bannaanbax looga soo horjeedo dowladda Mareykanka dowladda ugu horeysa oo lagu eedeeyay in ay faragelin qaawan ku hayaan dalka Itoobiya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bahirdar boqolaal shacab ah ayaa iskugu soo baxay bartamaha magaalada waxayna ku qeylinayeen erayo ka dhan ah dowladda Mareykanka ayay ugu baaqeen in ay faragelinta ka deyso dalka Itoobiya
dowladda Shiinaha ayaa u ballan qaaday dowladda Itoobiya in ay si buuxda u garab taagnaa doonto xilli dowladda Itoobiya ay wajahayso dagaalo kaga imaanaya kooxo jamhadaha oo isbahaystay. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u ballan qaaday Itoobiya in uu garab istaagi doono mar uu booqasho ku joogay magaalada Addis Ababa, sida ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Itoobiya ee Fana. warbaahinta dowladda Itoobiya ku hadasha afkeeda ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Addis Ababa ay sii wado dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigreega ee TPLF. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha oo garabkiisa taagan yahay kusmaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay saaxiibtinimada sii kordhaysa ee labada dal iyo rabitaanka Shiinaha ee ah inuu sii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Itoobiya. si fiican ayaan u fahansanahay xaaladda Itoobiya. Itoobiya waxa ay leedahay taariikh fog iyo karti ay ku xallin karto dhibaatooyinka dhexdeeda ka taagan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha. kusmaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ayaa Shiinaha uga mahad celiyay garab istaagga uu muujiyay xilli ay dowladda Itoobiya ay wajahayso dagaalo xooggan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna kusmaha ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uga mahad celiyay dowladda Shiinaha taageerada xooggan ay u muujisay. waxa uuna sheegay in dowladda Itoobiya ay soo afjari doonto kooxaha jamhadaha ee ka soo horjeeda. booqashada uu ku tagay dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay uu ka deeriyay xaaladda dalka Itoobiya. madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga walwalsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku barakacay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. 10,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalada bishii November ee sanadkii 2020 ka dhex qarxay ciidamada Itoobiya iyo ciidamada Tigreega ayaa waxay in muddo gacanta ku hayeen xukuumadda dalka Itoobiya inta uusan la wareegin talada dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha haatan talada dalka Itoobiya ayaa Abiy Ahmed. dowladda Itoobiya ayaa warbaahinta caalamiga ah waxay ka mamnuucday in ay tabiyaan wararka Tigreega, waxaana la jaray inta badan xiriirka isgaarsiinta. duulimaadyadii bini'aadanimo ee qaramada midoobay iyo kolonyadii ku xayirneed inta u dhaxaysa magaalooyinka Addis Ababa iyo Maqale ee gobolka Tigreega ayaa dib u bilaabay howshooda, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in ay gargaar gaarsiisay magaalada Maqale. dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo xabad joojin. waxaan aad uga xumahay dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya oo sii xoogeysanaya, ayuu yiri gudoomiyaha guddiga midowga Afrika. waxa uu ku booriyay in dhinacyada dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka isla markaana ay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka. jamhadda hubeysan ee OLA ayaa waxa ay sheegtay in ay khasaare xooggan gaarsiiyeen ciidanka federaalka Itoobiya. jamhadda OLA ayaa guulo ka sheegatay dagaalo dhex maray ciidanka federaalka Itoobiya iyo ciidanka jamhadda. afayeen u hadlay jamhadda ayaa waxa uu sheegay in guulo ay ka gaareen dagaalo ay la galeen ciidanka federaalka Itoobiya. jamhadda hubeysan ee OLA ayaa waxa ay xoojisay dagaalada ay kula jirto ciidanka federaalka Itoobiya, waxa ayna hore u sheegtay in ay ku wajahan yihiin caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. sidoo kale jamhadda ayaa waxaa shalay ku soo biiray ciidamo ka soo goostay maamulka Oromada. ciidamadan oo kor u dhaafay 1,000 askari ayaa waxay ku biireen ciidamada jamhadda OLA ayaa sidoo kale waxay wadaa dadaallo ay ku xoojinayso ciidamadooda, waxayna tababaro u furtay dhalinyaro badan oo ka mid noqonaya ciidamada jamhadda OLA ayaa sidoo kale waxay sheegtay in howlgallo gaar ah ay ku beegsadeen ciidamada maamulka Oromada. waxay sidoo kale sheegeen in ay kala wareegeen saanad ciidan, iyagoona sheegay in ay ka dileen askar aad u fara badan. guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.